xarunta daraasaadka haweenka Soomaaliyeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SWSC ayaa waxa ay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo soconaya 2 cisho u qabatay shaqaalaha hay'adaha ka howlgala Jubbaland waxaana casharada diiradda lagu saarayay mabaadi'da aasaasiga ah ee xuquuqda aadanaha iyadoo ay ka dambayso ujeedada ah in la xoojiyo fahamka howlwadeennada ee ku aadan xaqa bini'aadamka iyo sidii si wax ku ool ah oo tayo leh isla markaasna hufan loogu fulin lahaa waajibaadka saaran dawladda iyo shacabka sida ay sheegeen madaxda SWSC aqoon kororsigan ayaa waxaa laga rabaa in ka soo qaybgalayaashu ay kula noqdaan waxa ay bartaan goobahooda si ay saaxiibadooda u gaarsiiyaan mowduucyadan qiimaha leh ee ay dhigteen qaar ka mid ah xubnihii ka faa'iideystay oo la hadlay muuqbaahiyaha Ariel ayaa qireen baahida loo qabo tababarada noocan ah ayna fahmeen fikradda guud ee xuquuqda aadanaha iyo sidii ay ugu dabaqi lahaayeen hawsha maalinlaha ah ee ay ka dhex qabtaan xafiisyada sidoo kalena la wadaagayaan aqoonta ay ka heleen halkan asxaabtooda aan fursadda u helin in ay soo xaadiraan magacayga waa Najma Maxamed waxaan ka qayb qaatay barnaamij soconaya 2 maalin kaasoo ay bixinaysay hay'adda Somali Women Study Center maadaama lagu guda jiro 16 maalmood oo ololaha ka dhanka ah tacadiyada jinsiga waxaan qaadanay maanta barnaamij ku saabsan human rights gaar ahaan xuquuqaha dumarka hay'adda waxayna bartay ama bixisay wacyigelin si dumarka xuquuqahooda ay u ogaadaan xuquuqa ay leeyihiin haddii ay noqoto shuruucda beesha caalamka ee dejisay aadanaha ama dumarka iyo kuwa hadday noqoto kuwa federaalka iyo kuwa Jubbaland taasi oo kordhisay dumar ani ahaan bartay in aan fahmo shuruucda u degsan dalka Soomaaliya aan ku leenahay iyo waliba diinteena islaamka shuruucda ay noo dejisay waxaan ka codsanahay hay'adda inay sii wado barnaamijyadan wacyigelinta barnaamijyadan lagu horumarinayo dumarka inay sii wado noona soo badiso dumar badanna laga soo qaybgeliyo magacaygu waa Nadiifa Xaaji Nuunakay barnaamijka maanta 2 maalin halka noogu socday oo SWSC noo qabatay aad iyo aad buu u wanaagsanaa oo ku saabsanaa SGBV shaqaaqada ka dhanka ah jinsiga iyo international convention ka xiriir qarameedka aad iyo aad buu u wanaagsanaa waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda SWSC oo mar kastaba garab taagan bulshadeeda ee rabto inay maskaxdooda ku shibto adiga waxyaabo wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa SWSC hadda leema ah kulanka leekoon oo ma kulamo badan ay qabatay oo maxaa dhahay oo maalgelin kulamo oo waxay qabatay maxaa dhahay adiga GBV training bulshada qaybaheeda kala duwan way ka soo qayb galeen maasha Allah hadda waxaan rabnaa inay noo sii badiso si oo maxaa dhahay dadka dhan bulshada dhan ay u kala gaaraan oo tacdigana uu yaraado waan u mahadcelinaynaa SWSC isku soo wada duduub oo SWSC waxaa ka go'an in ay bixiso seminaaro kor loogu qaadayo aqoonta laguna dhisayo kartida adeegayaasha si loo wanaajiyo awoodda shaqaaluhu ay ku fuliyaan waxa ay qabtaan Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo